سيد علي ان اديك رفعان كسو قاد سما حكم محكمه ها مدن قدومي اوكي sababta ugu qanci weysay rafcaan kuga soo qaadatay maxkamadda ma sheegi kartaa oo sheegi karaan maxkamadda rafcaanka ee gobolka Banaadir ayaa maanta oo axada gudagashay dhageysiga dacwadda culus ee loo haysto Sayid Cali Macalin Daawud oo horay maxkamadda gobolka Banaadir ay xukuntay dil toogasho ah ninkan ayaa lagu helay kiis ah in uu gubay xaaskiisa Luul Cabdicasiis oo u geeriyootay dhaawac ka soo gaaray dab uu qabasiyay waxaa howlka maxkamadda ku sugnaa saraakiil ka socotay xeer ilaalinta oo dacwadda ku soo oogeysay qareenada difaacayay iyo waliba eedeysanaha iyo ehelada labada dhinac ugu horeyn waxaa fadhiga maxkamadda ka hadlay Sayid Cali Maxamed oo ah gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir wuxuuna sharaxaad ka bixiyay dhageysiga kiiskan xasaasiga ah oo ah mid isha lagu wada hayo intaas kadib maxkamadda ayaa u yeertay eedeysane Sayid Cali oo goobjoog ahaa wuxuuna ka hadlay sababta uu soo qaatay racfaanka isagoo ku dooday in uu dhibana yahay isla markaasna uusan geysan wax dil ah oo xaaskiisa uu geystay سيد علي ان اديك رفعان كسو قاد سما حكم محكمه ها مدن قدومي اوكي sababta ugu qanci weysay rafcaan kuga soo qaadatay maxkamadda ma sheegi kartaa oo sheegi karaan haye sababta xukunkan racfaan uga soo qaatay mudane gudoomiye waxay tahay in lagu xadgudbay anoo dhibana ah dhibkan la isku dul saaray oo lagu magacaabay in ay dilaa xaaskiisa iyo caruurtiisa dilay taasna ay ahayn mid aan jirin ku celi maxaad tiri waxa anigi in protocol hoos u dhig in lagu been abuurtay awgeeda xukunkan racfaan mudane gudoomiye uga qaatay xaaskiisa iyo caruurtiisa dilay ma jiro waxa lagu tilmaamay in xaaskiisa iyo caruurtiisa dilay sida awgeed oo qof maxay ahayd lagu magacaabay qof dilaa ah dambigiina aan geysan sidaas racfaan uga qaatay waxaan halkan u imaaday in cadaalad helo sidee wuxuu dhacay marka ma sheegi kartaa way idin sheegi karaa mudane gudoomiye falkan ma waxaan kaaga ramaa sidii intee kaga bilaabaa ma habeenkii dhibka dhacay subaxeedii miyaan kaga bilaabaa mudane gudoomiye se isla waqtiga dhibka oo dhacay adiga soo wartid noo sheeg horta mudane gudoomiye dhibkan waa dhacay waana waxa ogahay Soomaalina ay og tahay dab inuu guriga ka kacay xaaskigana dib uu ku gaaray laakiin aniga maana ahayn qofkii maxay ahayd xaaskiisa dilayay ama dabka ku shiday uu gubay waxaan waxay ku dhaceen sikadiisa oo lama filaana dabkiina guriga waa ka kacay sababo buuq awgood aniga xaaskii aan isku booqnay dabkii markuu kacay kadib waxaan u soo baxay ayadoo gubanayso waan badbaadiyay labadii gacmood waa ka gubtay dhagaha waa ka gubtay intaas daaweyna lagu waday ilaa sanka waa ka gubtay gudaha waa ka gubtay dhibkayga mudane gudoomiye qof soo fiirisa malaha kaliya waxa lagu mashquulay dhankii kale waxaan lagu magacaabay qof dilaa ah anigiyo dadaalayo oo wax walbana maxay ahayd ka gubanay abukate si waafaqsan qodob si kastaba ha ahaatee kiiska Sayid Cali waa kii ugu adkaa ee maxkamadda gobolka Banaadir la hor keenay waxaana isha lagu wada hayaa halka uu ku dambeyn doono